bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kulanti wanaagsan kusoo dhawaada warka telefishinka qaranka soomaaliyeed oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe tv-ga qaranka uu ku leeyahay magaalada muqdisho. hadduu alla idmo warka tv-ga qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa shir gudoomiyey kulan guddiga joogtada ee golaha ay uga hadlayeen guntanka kulamada guud ee golaha. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta kulan waxa uu magaalada muqdisho kula qaatay danjiraha dowladda Denmark ee Soomaaliya. waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir ku aadan dib u eegista xeerka socdaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. wararka dibadda ee TV-ga qaranka oo idin hayana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Suuriya ayaa jabiyay difaacidii ay maleeshiyaadka argagixisada ee Daesh ay ku lahaayeen magaalada Darzuur oo maalmahanba dagaalo ay ka socdeen. gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa shir gudoomiyey kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka oo looga hadlay guntanka kulamada guud ee golaha. kulanka 12aad ee guddiga joogtada ee golaha shacabka oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxaa looga hadlay guntanka kulamada guud ee golaha shacabka. xildhibaanada ka qayb gala shirarka iyo seminaarada aan gudoonka la socon iyagana aan warbixin laga helin iyo sidoo kale safarada xildhibaanada raaca wafuud ee aan gudoonka la socon. kulanka oo sidoo kale ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey waxaa markii uu soo gabagaboobay kadib la hadlay warbaahinta qaranka xildhibaan Sharmaarke Garaad Saleymaan Buraale oo ah habdhowraha golaha shacabka. waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo gabagabadiisa waxyaabihii la isku afgartay. waxaa dhacay kulankii guddiga joogtada ee golaha shacabka waxaana looga dooday 3 arrimood oo muhiim ah. arrinta koramka kulamada guud ee golaha shacabka, xildhibaanada ka qaybgalka shirarka seminaarada aan gudoonku la socon warbixin aan laga helin oo xildhibaanadu u baxaan safarada dibadda ah iyo safarada xildhibaanada raaca wafuudda gudoonka ah. runtii 3 ajenda baa laga hadlay, si wacan baana looga dooday. dhammaantoodna waxaa lagu soo gabagabeeyey in sida xeerosaadku qabo la raaco, xildhibaanaduna ay hoggaansamaan xeerosaadka golaha shacabka u yaalla. guud ahaan kulanka guud ee guddiga joogtada golaha shacabka ee maanta dhacay 3 qodob ku saabsanaa. Ibraahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa maanta kulan kula qaatay danjiraha dowladda Denmark u fadhiya Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo markii kulankaasi uu soo dhamaaday kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in danjiraha ay ka wada hadleen sidii Denmark ay uga qayb qaadan lahayd mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan saaka maxaliyaan la kulmay safiirka Denmark u qaabilsan Soomaaliya oo ka wada hadalnay maadaama qorshe cusub ay bilaabayaan barnaamijka ay bilaabayaan oo ku saabsan iskaashiga labada dal iyo arrimaha horumarinta, arrimaha gargaarka bini'aadanimo, waxay arrimaha ay nagala qaban karaan dhinaca amniga. waxaanu yeelanay wada hadal dheer oo aanu kaga hadlaynay qorshaha ay leeyihiin iyo waxa dowladda federaalka Soomaaliya oo ah ahmiyadda koowaad, labaad iyo saddexaad. wada hadalkaanu yeelanay waxa uu ahaa midho dhal dhinacyo badan taabanayay. Denmark waa dal aynu xiriir taariikhi ah leenahay. waxaanu ka wada hadalnay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal. waxaanu kusoo gabagaboobay wada hadalku midho dhal ay diyaar u yihiin inay inaga caawiyaan hadba inagala shaqeeyaan wax kasta oo muhiimad u ah dowladda federaalka Soomaaliya oo aynu inagu hogaaminayno baahiyaheena iyo saan furnaynaan waxayna la qabto. taas muhiim u tahay, mahadsantiin u tahay. waxaa magaalada Muqdisho maanta ka furmay shir ku aadan dib u eegista xeerka socdaalka dalka oo ay ka qayb galayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya.
sida warkan uu ku faahfaahinayo Cumar Xasan Cali. shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda socdaalka ee jinsiyadda ee Soomaaliya ayaa wada tashi soconaya 2 maalmood oo ku saabsan in dib u eegis lagu sameeyo sharciga socdaalka Soomaaliya ee la sameeyay 1966 waxaana furitaanka shirkaasi goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda, amniga gudaha, boostada iyo isgaarsiinta iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyadoo dadka ka qayb galaya wada tashigan ay ka kala socdaan inta badan wasaaradaha dowladda, ururada bulshada rayidka ah iyo hay'adda socdaalka ee jinsiyadda. agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadda ee Soomaaliya gaashaanle sare Maxamed Aadan Jimcaale Koofi ayaa sheegay in ujeedka uu yahay in la helo sharci la jaan qaadaya socdaalka caalamiga ah. ujeedkuna uu yahay maadaama sharciga socdaalku uu yahay sharci ka mid yahay sharciyada ugu saameynta badan oo qof kasta oo muwaadin ah saameyn doona iyo sidoo kale martida dalka joogta ama imaan doontana saameyn doonta waa wax u baahan aad looga fiirsado waa wax u baahan in loo fiiriyo adduunka heshiisyada socdaalka iyo sharciyada socdaalka adduunku isla og yahay in lagu fiiriyo oo ay noqdaan wax la jaan qaadi kara xaaladaha adduunka kusoo kordhay ee amni ee hadda taagana ay sharci la jaan qaadi karo lagu maareyn karo. wasiirada arrimaha dibadda, amniga gudaha, boostada iyo isgaarsiinta iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay ka qayb qaadanayaan dhamaystirka sharcigan. isna waxaan rajeynaynaa sharcigan inuu soo degdego oo waqtigiisana la siiyo. waa sharci runtii aada muhiim u ah. waan ka hadlay saad ogtihiin adduunka shuruucdana inta badan way koraan, waxay u koraan sida nolosha dadka ay u korto ayay shuruucdana u koraan. teknolojiyada korisa waa sharci taabanaya qof kasta oo muwaadina meel kasta uu ku noolyahay ama xuduudaha noqota ama dibadda ama gudaha in marka la tashi la geliyo waa muhiim. aan wada tashana waxay tahay aan wada shaqayno, aan wada tashana waxay tahay aan wada yeelano. haddii sharcigan la tashi baraaniga wixii ownershipka ama lahaanshaha qof kasta ayay kor u qaadaysaa hadhowdina waxaa fududaanaya dhaqangalkiisu way fududaanaysaa. dhinaca marka laga fiiriyo waa fursad in maanta la isweydiin karo sidee annaga dokumentigeena si caalamku u aqbalo oo baasaboorkeena wadamada qaar kama shaqeeya hadda. wadamo badan uu ka shaqeeyaa, caalamka badankiisa uu ka shaqeeyaa, qaar kalena waa sii aqbalayaan. laakiin su-aalahan hor yaalla inaan ka jawaabi karno oo qofka baasaboorkan sita inuu asagu qofkan yahay uu sheeganayo magacaanu yahay wixii kaloo caddeyn ah oo baasaboorka ka baxsan oo marka baasaboorka la bixinayo lagu xaqiijiyey inuu qofkan yahay in la ogaan karo. dadka halkan isugu yimaado oo ka wada socdo wasaaradaha federaalka inay fikirkoodii hadda ay maanta ka dhigtaan wixii input ay ku dari karaan ay ku daraan si hore loo socdo loola kulmo maamul goboleedyada. maanta waxaan idinka fadhinaa iyo beritogo wixii inaad ku dartaan. marka ay soo gabagaboobaan wada tashiyada la xiriira dib u eegista sharciga socdaalka Soomaaliya oo lala yeelanayo hay'adaha dowladda, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada ayaa sharcigan la horgeyn doonaa golaha wasiirada si haddii ay ansixiyaan loogu sii gudbiyo baarlamaanka. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa badbaadisay dhisme ay lahayd oo la doonayay in si sharci daraa lagula wareego. sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cabdiraxmaan Aadan. xarunta xanaanada carruurta xisbiga oo ah dhul wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay leedahay ayaa waxay sheegtay milkiyadiisa Ciidruus Nuur Sheekh Nuur isla markaana u soo samaystay dokumentiyo been abuur ah si uu uga wareego dadka hadda gacanta ku haya xaruntaasi. hase ahaatee waxaa arrintaasi ka hortagay wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa hay'adaha dowladda. xarunta ayaa hadda garaash lagu farsameeyo baabuurta waxayna ku taalla degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. waxaana gudaha xaruntaasi maanta saxaafadda kula hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo shakhsiyaadka hadda gacanta ku haya xaruntaasi. ka sokow wasaaradda waxbarashada waxaa dadaal dheer u galay sidii xaruntaasi gacanta dowladda dib loogu soo celin lahaa xildhibaan Warsame Joodax iyo Cabdi Bare Jibriil. halkaas ayayna saxaafadda kula hadleen. dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa nimankii nagu ceebeynayo doonayay hantida qaranka inay dhacaan inayan waxa lahayn dawladdii iska lehed u taagan tahay, wasaaraddii lehed taagan tahay, annaguna inaan qaadanayna iyo inaan boob ku haysanay iyo inaan boobayna wixii ummadda u sheegeen ay been yihiin madaxda caddayn doonta. nimankii halkaan ordahayay maalintii dhawatay oo gurigan dhacayay waxaan ku yidhi haddaad ka noqdaan haddii madaxtooyadana dhacanku dukumenti u samaysta
waxa weeye dawladdu waa in horta wax ka qabataan meesha dhibka laga soo abaabulayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo maanta madana wasiir Faysal laga joogo waa in garsoorka wax laga qabtaa haddaan garsoorka la toosin oo garsoorka wax laga qaban wax hagaagaya dalkan male meeshii lagu carar lahaa oo sharciga lagu cararayay waxay noqotay meel dadka maanta lagu dhibaatay taa waa in la ogaadaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya Faysal Guuleed ayaa u mahadceliyay taliska booliiska gaar ahaan qaybta Weliw Cadde iyo maamulka degmada Xamar Jajab asagoo sheegay in dhawaan wasaaradda dib u howlgelin ku sameyn doonto xaruntaasi ardayda maanta aan leenahay halkan in iskuul looga dhigo ay wax ku bartaan doonayno haddii ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyo badan ayaan cidda hadda garaasha gacanta ku haysana kala wareegi doonaa oo iskuul looga dhigi doonaa haddii Allah awood leh ogolaado si degdeg ayaan rabnaa haddii Allah awood leh ogolaado in iskuulkaasi loo furo wasaaradda waxbarashaduna ay u dhaqan geliso xarunta xanaanada carruurta ee xisbiya ayaa ahaan jirtay ka hor dawladdii kacaanka mid ka mid ah xarumaha laga maamuli jiray xisbiyada siyaasadeed ee ka jiray dalka hase ahaatee dawladda ayaa waxa ay ku wareejisay wasaaradda waxbarashada taas oo ka dhigtay xarun wax lagu baro carruurta cali cabdiraxmaan aadan SNTV muqdisho dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa leh awood iyo karti ay ku qaban karaan shaqooyinka ay qabtaan dadka lixaadkooda u dhan yahay balse inta badan bulshadu ma siiso fursada ay markaasi hibahooda ku muujiyaan dadkaasi haddaba warbixinta soo socota waryahayga Aamina Xuseen Maxamed ayaa arrimahaasi kaga hadli doonta inkastoo dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool Muqdisho ay aad u badan yihiin haddana waxa yar xarumaha ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin Albasiir waxa ay ka mid tahay xarumaha farkutiriska ah ee daryeelka siiya dadka aragga la waxa ay waxbarasho munaasab ku aasiisaa ilaa 60 ruux oo arag la kuwaasi oo 27 ka mid ah ay ka helaan hooy xaruntan aasaasayaasha iskuulka waxa la aasaasay 2011 bishii February 8deeda waxaana aasaasay afar raga iyo dumar mid dumara oo 5 xubin aasaasay xubnahaasna waa aad iyo aad because maadaama ayna helin janis dad waaweyn ahaayeen waxay ka fikireen iyaga maadaama ay dhaaftay janiska ay waayeen in la gaarsiiyo dadka ka yar yar ee helaan waxbarasho maasha Allah guud ahaan ardayda dhigato waa 45 oo daily u imaado laakiin inta liis gareysan waa aad u badan yihiin maadaama ay xaruntii iska yar tahay wax walba ay ka fikirin laakiin inta 45 ah ayaa maalin walba noogu imaado iskuulka 32 labo way seexataa inta soo hartana waa imaadaan wayna xaafadahooda ay u laabtaan waana aad iyo aad horumar u gaareen oo wax walba ay bartaan oo manhajkii wax walba laga bartay bartaan waxaan isku jiraan gabdho iyo wiilal dad badan oo ka mid ah kuwa halkaan wax ku barta markii ay la'aanta ku dhacday waxa ay lumiyeen hamigii ay ka lahaayeen waxbarashada balse hadda taasi meesha waa ay ka baxday waxaa ku bartay English, Chinese, social, math, Somali waxaa ku bartay maadooyin fara badan aan ku bartaa sida maadada Englishka oo kale si lamida maadada Science-ka Math-ka and ICT iyo kuwa fara badan aan ku bartaa aan halkan lagu soo koobi karin farq weyn ayaa u dhaxeeyay markaan intaan iskoolka man koor aan aaminsan inuu qof aragga la oo san wax baran karin isla markaan muhiimadda tahay inuu guriga iska dhex fadhiyo laakiin hadda alxamdulillah markaan imi iskuulka Albasiir waxa fara badan ayaan fahmay waxaana kamid in qofka aragga la wax baran karo wax walba uu qabsan karo isla markaana aan arkay dad hamile oo iskoolka Albasiir ku sugan deetana halkaas ayaan ka sii watay hooleeygi oo waxbarashada ku saabsanaa falilahi alxamdu maantana waxay geeday inaan marayo fasalka 8aad ee dugsiga Albasiir waxaan ahay fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ee iskuulka Albasiir waxaan ka bartaa maadooyin fara badan sida Englishka, Socialka, Science-ka, Math-ka iyo maadooyin kale oo halkaan aan lagu soo koobi karin maadada u jeceshahay aniga waxaan ugu jeclahay maadada Socialka oo ah cilmiga bulshada maasha Allah marka hore is eheenin wax ku baranay laakiin hadda waa inaan wax baran karo dadka arag baahiyaha gaarka qaba in ay wax baran karaan maasha Allah hore blind is not blind mind waa tahay marka halkaan imaanaysay iyo hadda waa isbarbardhig ku sameeyay maasha Allah isbarbardhig hada ku sameeyo marka imaanay horta waxa is dhahaysaa wax ku baranay oo dadka ala qabsanay laakiin maasha Allah hada ha barto
arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in maamulaha xarunta albasiir isaga qudhiisa uu yahay mid ku xaalad ah dadka halkaani daryeelka ka hela. waa dareemi kartaa anigoo ah nin aragla misana wax soo bartay oo 12 sano dugsi sare ilaa soo dhabeeyay jaamacadna dhameenayo waa dareemi kartaa qof aragla in wax bara karto waxna samaysan karto misana wax walba qaban karto. hadda alxamdulillah familkeyga wax walba aan u raadsado ana ordo qof haba yaraatay taageerto ma jirto shaqadeeda ayaa wax lagu siiyaa marka waa taas waxay ku cadeynaysaa qof walba oo wax barato inay anfacayso iyada mid kale qofta aragga laana ma naqan karto kirshboy ma naqan karto fuundi waa inay qasab waxa ku ah ee wax barato si wax u noqoto aad iyo aad qaarkood way shaqeeyaan qaarkood wariyaal ay noqdeen qaarkood waxay noqdeen macallimiin wayna shaqeeyaan laakiin waa inkastoo shaqadii ayna permanent iyaga dhan ay wada helin laakiin qaarkood way shaqeeyaan maasha Allah qaarka kalena waxbarashadooda ay sii wataan. codka maamulaha sheekada Ismaaciil iyo ardaydiisa waxa ay nabaraysaa in dadka qabo baahiyaha gaarka ahi ay ku duugan tahay awood iyo waxqabad balse waxaa jira kuwo badan oo fursad aan u helin bulshadana ay siinin ahmiyad weyn. daawadayaal qaybihii ka haray warkeena dib aynu isugu soo laaban doonaa balse waxaa la gaaray xilligii lama dhaafaanka ah ee aadaanka salaada cishe xilliga magaalada Muqdisho kadibna warkii aynu ku soo laaban doonaa insha Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين آمين آمين. halkaasaynu ku dhaafno aadaankii salaada cishay ducadii ka dambeysay waxaad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed haatana dib aynu ugu laabano qaybihii ka haray warkeena habeenimo. kulan ku saabsan ka hortagga ka ganacsiga dhuxusha oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda bay'ada dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka furmay ama lagu qabtay maanta magaalada Gaalkacyo sida uu ku soo waramaya wariyahayga Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo Gaalkacyo ku sugan.
kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda bee'ada dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug isla markaana ahaa mid ku saabsan wada tashiyo ku aadan yareynta ka ganacsiga dhuxusha oo muddooyinkii u dambeeyay noqotay mid si weyn looga dareemay deegaanada Galmudug ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Galmudug waxgarad iyo qaar ka mid ah ganacsatada dhuxusha magaalada Gaalkacyo ugu horreynna waxaa kulanka ka hadlay duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdirashiid Xaashi Cartar kuwaasi oo ka dhawaajiyeen in jarista dhirta iyo ka ganacsiga dhuxusha ay tahay mid loo baahan yahay in la yareeyo si ay nolol u helaan dabaadiga yar ee ka haray xoolaha maadaama abaaro ay ku baxeen intoodii badanayd bulshadan oo go'aansatay inay geedaheeda inta jarto dad geedahooda ilaashanay u baagayaan hadda ka hor odayaal oo ka ganacsado qaar meesha joogan ka wada hadalnay wardhuxusha see loo joojiyaa waxa loo joojin karo waxaa ku nool mujtamac ciidaas ka badan oo qaarna maaragtay ka xoogsada kuwa shida iyo kuwa ka ganacsada intaa kaliya kuma ekaana waxay noqotay waliba in loo iibgeeyo gobolada kale oo Soomaaliya oo ama aysan xooluhu ku tiirsaneen oo ay dhiraha iyagu haddii ay jaran lahayn xataa jaran lahayn dhirtoodu ay samaysan lahayn aan xoolo lahayn in halkaan oo xoolo dhaqato ah oo la garanayo in dhirtoodii geedahoodii inta la jaro loo iibgeeyo dhuxul laga sameeyo loo iibgeeyo meelahaas oo idin taana marka waxayna dhaxasiisay cawaaqib kale sidoo kale marka waxaan rabaa inaan halkaan hadda ma arkaysaa mar labaad mahadnaq u jeediyo si gaar ah saaxiibkay oo sarkaal ka socda hay'adda SRD Cabdi Jindo oo idin sheego in si mutadawacnimo xataa maalin gowaan zoonkeeda dhir beeris ku bilaabay doontii waagi dhawdeegaysa xataa agab far badan oo geedo abuur iyo howlahaas ku saabsan oo inta maamul naga aqbalay inuu deegaan ka bilaabi doono asagana maanta uu joogo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsada dhuxusha iibisa oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay joojiyaan ka ganacsiga dhuxusha ugu dambeynna waxaa kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda bee'ada dhirta iyo daaqa Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed oo sheegay inuu ka wasaarad ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii mashaariic kale loogu abuuri lahaa dadka dhirta xaalufinaya si loo badbaadiyo deegaanka anagu ka wasaarad ahaan inta aanan hawshan bilaabin waxaan muddo dheer oo ilaa 2 bilood 3 bilood gaaraysa aan ku jirnay waxaan daraasad ku haynay anagoo fiirinayna caalamka meelaha inaga nala midka dawlad goboleedyada anaga nala midka sida ay u xakameeyeen barnaamijkan runtii dhibaatada xooga badan ku ah dalka iyo deegaankaba waxaan haynaa dhammaan xogihii ama imkaaniyaadkii arrintan aan ku xakameynay Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo taliska ciidanka booliska ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu wadaa dadaalo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Jowhar oo doorashada madaxweynaha Hirshabeelle lagu qaban doono Cabdullaahi Muxidiin Codka ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar degmada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ahna caasimada gobolka Shabeellada Dhexe ayaa looga diyaar garoobayaa doorashada hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle oo dhici doonta bilowga toddobaadka soo socda oo ku beegan 16ka bisha 9aad 2017 xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay soo gaarayay musharaxiinta xilka hoggaanka sare ee maamulkaasi siyaasiyiin kala duwan suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta gudaha iyo dibadda iyo dadweyne kala taageersan musharaxiinta taliska ciidanka booliiska gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Jowhar warbaahinta qaranka kula hadlay magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay sida ay booliis ahaan ugu diyaar garoobeen sugidda amniga taliyaha saldhigga degmada Jowhar Saddex Xidigle Maxamed Cali Siyaad oo faahfaahin ka bixinaya sida ay isugu diyaariyeen doorashooyinka haddii aan ka hadlo maanta shirkan jiraan wuxuu ku saabsan yahay qaabka doorashada ay uga dhacayso gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar doorashadaas oo ah doorashadii madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan u diyaar garownaa annaga haddaan nahay ciidamada booliiska Soomaaliyeed inaan maaragtay ammaanka adkeyno hadba sida nooga aadan kaalinka nooga aadan waxaan sameynay maaragtay dadka bulshada inaan soo dhaweyno inaan maaragtay musharaxiinta si gaar ah u shaqeyno dadka howlka shirku ka dhacay amnigiisa aan suuno intaasoo dhan waa inta noo idmaday oo shacabkuna nagu aaminay dowladuna ay noo soo dirtay marka saa darteed waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaa gaar ahaan dadka reer Jowhar in ay maaragtay ay sheeg maxay ahayd ay la shaqeeyaan ciidamada amniga
taliyaha qaybta guud ee booliiska ee gobolka shabeellada dhexe gaashaanle aadan yarow xuseen ayaa ugu baaqay bulshada reer jowhar musharixiinta iyo taageerayaashoodaba inay booliiska gacan ku siiyaan sugidda nabadgelyada. هذا أنا وأنت لو قاعد وقفت الوتجيزة صح إن توسنه أنا وحي قلبنا وما المرأة أن توسنه كنترولنا وحي سوقلها بلدك سوقلها أن كنترولنا نك السرع وكل سوقلي أن أقالنا أنا لو كاسنين هاي أنا مسؤولة يوم ملتيريا أنا لو كاسنين أنا وقفت لو قاعد بقى الجنينة. xarunta maamulka Hirshabeelle iyo tan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa horey u martigeliyay doorashooyin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen tii xildhibaanada golaha shacabka iyo tan aqalka sare iyo doorashadii madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi Cosoble oo dhawaan baarlamaanka Hirshabeelle uu kalsoonida kala laabtay. Cabdullaahi Muxyidiin Codka, warbaahinta qaranka, degmada Jowhar. maamulka gobolka Gedo ayaa taageeray go'aankii xukuumadda ee ka soo baxay 6 bishan sida uu ku soo waramayo Cumar Ciidruus. xilli 6 bishan xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay go'aan cad ka qaateen arrinta qalbi dhagax oo ka mid ah jabhadda Onalif ee ka dagaalanta dalka Itoobiya ayaa go'aankaasi waxaa si diiran u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gedo kuwa degmada Baardhare iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Baardhare. مسؤولينتا iyo bulshada ayaa sheegay in ay haboon tahay in la ilaaliyo nidaamka dawladnimo ee ka hanan qaaday dalkeena Soomaaliya. Madaxweynaha degmada Baardhare Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax Goofi iyo gudoomiyaha gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay waxaana kamid ah hadaladoodii. xukuumadda go'aanka ee ka qaadatay waan taageersanahay waan raacsanahay wax kasta oo dalka dhibaato ku wada in la iska qabta waa shay waajib ah. dawladaha dariska in laga shaqeeyo waa shay waajib ah. gudaheena inay safideen oo la iska qabto waa shay waajib ah. fikirka saliimka ah oo xukuumadda Soomaaliya ay qaadatay kaasaan taageersanahay. ku saabsan ninka la yiraahdo qalbi dhagax aad baan ugu faraxsanahay in la weydiiyo sababtuna waxa weeye qalbi dhagax waa shakhsi dhibaato fara badan ka geystay geyiga Itoobiya dadkuna waxa la rabaa in dhalanteed iyo wax aan jirin la iska dhaadhiciyo ama bulshada laga dhaadhiciyo lama rabo waxa la rabaa hadalka iyo waxyaabaha qofku uu ku hadlay inay tahay wax ku salaysan xaqiiqada. qalbi dhagax shakhsiyan dadku waxa la rabaa meeshay ku dhasheen iyo meeshay ka soo jeedeen in la ogaado. dawladda Soomaaliya ma maamusho wakiilna kama aha Itoobiya iyo Kenya waxay maamulaysaa ay wakiil ka tahay mas'uul ay ka tahay dalka Soomaaliya. qalbi dhagax waa shakhsi Soomaali Itoobiya ah oo Itoobiyaan ah oo kilinka shanaad u dhashay dhibaatooyinka meesha uu ka geystay ee argagixisnimada waa dalka Itoobiya ee kilinka shanaad. waxna waa wax shacabka loo dhimay arrimaha horta siyaasaddu in dawladda loo daayo anigu shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waan soo dhaweynaa arrintaas waan qabaa fikirkaas in la qaato waa qabaa laana maxaa yeelay anaga dawladaan baan ugu dhacday marka dad urur diimeed oo dana siyaasadeed leh inay bulshada rayidka ay kiciyaan waa arrin khatar weey. rayidka waxaan uga digayaa arrintaas ka gaabsada. wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan yeelanay indho waxaan yeelanay qalbi waxaan yeelanay niyad aan ku socon. marka waxa oran karnaa wax qabadkooda dadkii taagnaabay fariisiyeenba marka waad aragtay Muqdisho soonkii nabad baa looga soomay wixii ka dambeeyay wanaag iyo nabad baa ka sii jiro. jidadkii iska xirnaay macna la'aanta la xirnaaba furmay isu socodkii gaadiidka free noqday bulshadii ama dadka caqabadaha ka soo gaari kareen dhanka askarta waa maaragtay la tirtiray barnaamijka asaga ahaa. hadalka mas'uuliyiinta iyo bulshada ayaa ku soo beegmay xilli bulshada Soomaaliyeed ay aad u hadal hayaan arrinta qalbi dhagax oo ka mid ah jabhadda Onalif ee ka dagaalanta dalka Itoobiya. Cumar Ciidruus Axmed, warbaahinta qaranka, Baardhare. dadka reer guuraaga ah ee ku nool gobolka Mudug ayaa ka cabanaya biyo la'aan iyo xaaladaha abaareed oo wili ka jira deegaanadaasi. Safiya Sheekh Cali ayaa warkan ka soo dirtay. gobolka Mudug waxaa muddo ka jiray abaar saameyn ballaaran ku yeelata dadka iyo dunyada taas oo xoolihii inta badan reer guuraaga ka leysay. deegaanada dhaca bariga gobolka Mudug waxaa maalmihii dambe ka soo yeeraysa cabasho ballaaran dadka halkaasi ku dhaqan kuwaas oo maamulka Galmudug iyo hay'adaha samafalka bixiya ka dalbaday
in ay gargaar la soo gaaraan. deegaanada Bitaale, Gacma Fale, Godad, Jeexdin, Godgaashaan iyo kuwa kale muddooyinkii dambe kama diin roob ku filan. reer guuraaga ku nool waxa ay sheegeen in ay sii baahayso saameynta abaarta, ayagoona xusay in meelaha qaar colaadda xoolo dhaqatada u dhaxaysa ay saameysay ceelbiyoodyadii ay biyaha ka heli jireen. haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada oo ka hadlaya xaaladaha nolol xumo ay haysta xilligan. arigina waa abaar baa keentay wadanka dadka u keentay, waa markii arig dhamaaday baan waxaan niri meel muslim jiro iska aad Godgaashaan baleeradaa abaaraa ka jira, marka bay ka jiraan waxa weeye baayo oon iyo abaar iyo waxba ka jira, colaado iyo oon iyo abaaray wax dhanba ka jira isku si weeye isku nooc ay haysaa oon iyo abaar dadka awro xataa qaar ba awro lahayn waxa biyaha meesha lagu dhigto abaar awro aan ba ka dhacday xoolii waxna waa dhamaadeen waxna waa u joogaan. meesha waxaan deganaa ceel korkeed dhibaato ayaa nagu haysa ama raashin la'aan ama biyo la'aan ah. waxaan marka ka codsanaynaa haddii ay noo timid maamulka Galmudug iyo madaxda iyo bulshada oo dhan waxaan ka rabnaa gacan qabad weyn oo sharaf leh oo wax noogu qabada sidaas weeye ceelkii iyo ceeshii aan qodanay iyo deegaanka aan iska lahayn guryahayagii waa meeshaas. deegaanadaas waxaa in muddo ah ka jiray colaad aan xal waara laga gaarin, taasoo u dhaxaysa xoolo dhaqatada maamulada Galmudug iyo Puntland. walow marar badan mas'uuliyiintii maamulada Galmudug iyo Puntland xeelka ka soo qabtay ay galeen wada hadallo aan xal laga gaarin. colaadda xoolo dhaqatada ayaa salka ku haysa dhul daaqsimeedka iyo ceelbiyoodyada. hadda waxaa socda dadaalo nabdeed oo lagu raadinayo in reer guuraaga nabad ay gobolka ku wada deganaadaan. taas ay Muqdisho waa naginta warkankiisa kale intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum.